يوسف علي عبدي وشخص أذب دحاض وأح إسبورتسكا isagoo waqti badan iyo juhdi fara badan galiyay sida isboortiska dalku horumar weyn u gaar lahaa Yusuf muddo 22 sano ah ayuu ka howlgeliyay garoonka Hargeysa Stadium isagoo la soo shaqeeyay xiriiro kala duwan goobjoogna uu ahaa tartamahiisa badan oo ka dhacay garoonka Hargeysa Stadium Yusuf ayaa sanadkan helay abaalmarinta President Award uu bixiyo madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Somaliland تكوبيلات السنة كرون كاسون بريجي هرشوق لهينو أحوال لهينو هذه يصير وحنا بدأ هي على مدى وسيق قاعد يشري البابنا مال هاي أنتي كتب بيسنا ودول كي بقول قرحية ساردي وقرح زي يمكن أنا وانا ودي أركي كرون كي ترتن كي يقول حسابنا كوبيلات كاسنا ضد ترتن كي مكذا ما ذي بوها تاوحنا هلاي لابد كوني قرصور كواحد قرصورة دحنا قرصورة أفراد waxay sii ma ka abtirshida caadid bay sii oo markaa wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda kana waxa sii jahweyn kii loo oran jiray maxamed faarax 2002 baad kana waxa sii maxamed saciid oo 2005 buu ahaa kana waxa sii madaxweynaha musabix cabdi intana waxa sii madaxweyne ku xigeenka abaalmarintani sida ay noognahay xidhiidhada adduunka sanad walba waxa la qiimeeyaa qof ciyaaraha dalka runtii aynu oran karno dhiig buu u shubay anigu kama warrami karo taariikhda Yusuf rag badan iyo dumar badan oo ciyaaraha Soomaaliland waqti dheer ku soo jiray ayaa qof waliba wuxuu ka markhaati kacay runtii qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay sanadkan 2022 waxaan u garanay inuu Yusuf noqdo qaato abaalmarinta una qalmo the President Award taafka anka oo bil 20 sanadood yaan garoon ka soo shaqeynay ma si kastaba ilaa tii aan doog lahayn oo qashin ka buuxo inta u shaqeyn عبدالرشيد عيدي iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda qadar jiilaal ragii soo garab qaftay weeyaan markaas aas ahayd يوسف كبدها وحسي حمالة جري إذا أو غيركي سووا ولا تقوا أنو هيسن يوسف عيارتوي عريساني وحيابها يكون على بربور جري وحكم إذا قلبك مركا عيارتو لما تو قرون كنومو هاين ستور شبكة على مدى يكون بدها يسقى قاضي جري كوحدة لقبضيا أنت سيكون على بربور جري يوسف لقى إلى جري يقول أوز شيء يا oo ay u badan tahay inay wax badan ka soo gaaraan Yusuf waxaan ku guuleystay 2014 muddada uu soo shaqeynayay inuu noqdo qof gulna ka qaata wasaaradda waxa kale oo ku guuleystay inuu yahay imika shaqaalaha wasaaradda ixtiraam iyo karaamo iyo mudnaan weyn buu nagu leeyahay waxaanu la soo korinay oo aanan kaalinteedii buuxin carruurtiisa oo ay hooyadood dhimatay duruuftaas nin nagu soo xamilay oo nagula soo dabaashay oo nagula soo shaqeeyay buu yahay taariikhda aan ciyaaraha dalku leeyihiinna meel weyn buu kaga yaalaa Yusuf aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa sida aad nolol shaqaysay waana hobby uu jecel yahay Yusuf wuxuu ku shaqaystaa oo uu aqoon u leeyahay nijaaradda